في سبيل الله ما أحلى المنون مسلمون مسلمون مسلمون. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawada haddii aad nagu cusub tahay kusoo dhowow janaalka dalnuur youtube. daawada haddii aad hore inoogu xirnaydne mar labaad soo dhowow ayaan ku leexay. daawada muuqaalka maanta waxaan ugu hadlaynaa qisadii 3dii cunug ee yaraanta ku hadashay. daawada muuqaalkan haddii aad ka heshay subscribe inoo saar si aan usoo badino muuqaaladan oo kale. Number 2. qisada koowaad haddii aan ku hormaro waa nebiyullaahi ciise calayhi salaam. sida aan wada ognahayba yaraanta ayuu ku hadlay. nebi ciise meel magaalada ka fog ayay ku dhashay hooyadii maryama iyadoon cidna aysan ogeyn. markii ay soo xambaaratay wiilkeedii oo ay imaaday magaaladii ama odayaashii cabbeed meesha ay joogeen, markii ay arkeen cunuga waa ay la yaabeen. markaas bay dhaheen, maryamoy halkeed ka keentay cunugan? haaruun walaashiisiiyey cunugan intaad ka keentay. haaruunkaasne ma aha nebi haaruun, waa nin markaasiiti cibaado badnaa ee wanaagsanaa. qof walboo sidaasoo kale wanaagsano cibaado badanne walaal baa looga dhigi jiray. markay sidaas dhaheen bay tiri, farta bay ugu fiiqday, isaga la hadla unbay ku tiri. markaas bay dhaheen, sideen ula hadalnaa canug yar oo hadda dhashay? kadibna nebiyullaahi ciise calayhi salaam waa uu hadlay. waxa uuna yidhi, qaala innii cabdullaah aataaniya alkitaab. aniga addoon ilaahay ayaan ahay, ilaahayna kitaab ayuu i siiyey. markaas ayay yaabeen. qisada labaad haddii aan soo koobno, jurayj waxa uu ahaa wiil aad u cibaado badan. maalin walbana waa uu dukan jiray. mar walbana hooyadii ayaa u imaan jirtay isagoo dukanaya, kadibna waa ay wici jirtay, jurayj jurayj jurayj. isagana mausan ajiibi jirin oo salaadiisa unbuu sii wada jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadii waxa ay ku habaartay, ilaahayow wiilkayga ha dilin adigoon tusin dadka wejiyada xunxun. markaas bay dadka xaafadda deggan waxay u ammaani jireen jurayj gabar markaas qabiil weyn ka dhalatay oo sharaf leh, lacag iyo quruxna u saaxiib ah. mar walba waxay dhihi jireen, wiilkan waa wiil cibaado badan, cid wax ka qaban karta ama fasahaadin kartana ma jirto. markaas bay tiri gabadhii, ani iigu haleeya, ani iigu daaya, anigaa soo fasahaadinaya, cibaadadiisana ku dheelaya. gabadhii inay isku soo qurxisay, aad isku soo qurxisay ayay u timid jurayj. dhinac walba ay ka martana waa uu ka sii jeesan jiray. dhinacan bay ka soo martaa wuu ka sii jeestaa, dhinaca kale ka martaa wuu ka sii jeestaa. markii ay aragtay wiilkan inuu yahay wiil cibaadada aad ugu adag, ilaahayna uu hanuuniyey oosan waxba laga qaadi karin oonan la fasahaadi karin, way ka tagtay. waxa ay isku dhiibtay qowsaar jurayj la noolaan jiray ama jurayj meeshuu seexan jiray seexdo. qowsaarkii bay isku dhiibtay. qowsaarkii baa uur u yeelay, cunug bay dhashay. markaas bay tiri, cunugan jurayj ayaa dhalay. dadkii xaafadda degganaa jurayj ayay u imaadeen, waab uu ku cibaadaysanaya bay ka dudumiyeen. markaas bay dhaheen, cunuga maxaa gabadhan uga dhashay? markaas buu dhahaa, aniga ma dhalin. waabtii markay ka dudumiyeen buu baxay, wuu weyse qaatay, 2 ragcad sunna ayuu dukaday. cunugii yaraa ee la dhalay ayuu xundurta farta ka saaray. markaas buu dhahay, war yaa qulaam, yaa ku dhalay? markaas buu cunugii yaraa wuxuu dhahay, qowsaarka ay dhalay. qisada 3aad haddii aan soo koobno, hooyo iyo wiil yar oo ay markii dhashay. iyagoo wada jooga waxa uu imaaday nin faras saaran aadna u qurux badan. markaas bay hooyo calool jileecday, ayay tiri, ilaahayo wiilkayga ninkan camal igaaga dhig. markaas buu sidaa intuu u soo eegay ayuu ku yidhi, ilaahayow kanoo kale ha iga dhigin. hooyo iyadoo yaaban ayaa haddana meesha waxaa la soo marsiiyey naag la tumaayo ee xirxiran ee dhulku lagu jiidaya, misna la dhahayo way samaysatay. markaas hooyo inay calool jileecday ayay tiri, ilaahayo wiilkayga naagtan oo kale ha igaaga dhigin. markuus buu intuu saan u soo eegay ayuu yidhi, ilaahayow naagtan oo kale iga dhig. hooyo iyo wiilkeeda inay sheekaysteen. markaas buu ku yidhi, ninkaas wuxuu ahaa nin isla weyn, ilaahayna ma jecla dadka isla weyn, balse naagtani waa laga been abuuranayaa. waxa lagu yeeraya ama markaas lagu dhahayana ma aysan samaynin, ee ilaahayow naagtaasoo kale iga dhig.
qisadii saddexdii canug ee yaraanta ku hadashayna meeshaas ayay noogu eg tahay. daawade janaalka sabskraib inoo saar. mahadsanid.